halka kan garow baa nimi waxay la socda mira awaare Allahu naxariisto iyo Maxamuud Gacamay oo reer Sanaag ahaa waxay la socda Ismaan Fatiig oo janan ka ah konton iyo afraad waxay la socda Cabdullaahi Sheekh Faax nin la yiraahdo agaasimihii guud oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo xamar bari waxa laga dhisayaa sool iyo Sanaag mainly waxa laga dhisayaa waxa la yiraahdo jid cadayaal 6 ah waa garow qardho waa boosaaso waa qardho boosaaso soo laba ma waa qardho waa isku shuban soo saddex ma waa qardho waa meesha la yiraahdo ceerigaabo ha isku shuban baargaal kala bayrka 6 shirkadood baa la soo siiyay shaqadaas 6dii shirkadood iyo intayadaas halkaan aanu ku jiray habeenkii baanu seexanay subaxii baan waxaan u yeeray 6dii maareeye oo jidcadayaasha faylashooda watay qol baan la galay albaabkan u soo xirtay wixii ila socdayna waxaan noo faqdaayay anaga nimankaas waxaan ku yiri dhageysta dhulkan 75 sano baa Talyaanigu xukumayay hal iskuul noogama tagin hal jid noogama tagin hal qof oo uu wax baray oo dhulkaana laba kaliya jirtay baan ya in fact saddex bay ahaayeen laakiin maalinta labaan u sheegay waxaan ku yiri waxaan rabaa inaad idinkoo xor ah oo maskaxda xorka ah oo aan dokumentigan aad la soo saxiixateen dawladda Talyaaniga aan sidii kitaab ugu dhaganayn inaad ila riisan gareysaan baan rabaa waxaan ku yiri dhulka kan laba goor buu ku daa roob sanadkii marka uu da'o jidcadihii la sameeyay oo aad dhamayseen waxa qayb tirtiraya meeshiis buu ku noqonaya roobka dambe jid ma jiro dadkii loo gurman karo technical meel galatay engineer baan idinku engineer waa kula garanay baa waxaan ku waxaan rabaa 6diini document halka soo saaraba 6da document xisaabta ku qoran 6da jaho oo aad kala aadaysaan amnigooda ma sugi karo anigu service-ka aad iiga baahantihiin ma fulin karo miisaaniyadeedu kuma filan waxaan rabaa inaad aynu laba inagu wax isla ogolaano aniga iyo idinku inaynu wax isla ogolaano wax practical ah oo useful noo ahna aad samaysaan wixii ka soo hara taas oo sharciyad ku saabsan labadeena kooxoodba waa ka wada hawlgalaynaa 6dii miisaaniyadood oo 6da jidcadde ku kala qornaa waxaan rabaa in la isku daro oo 6diina aan idin qaybiyo laba group 3 iyo 3 consortium baa la yiraahdaa waxaan rabaa inaad magacowdaan hadda engineero surveyors ina magacowdaan oo intaynu halka joogno aad u dirtaan jidka Boosaaso iyo Garowe jidkaas inaan laami ka dhigno development maahan wuxuu ahaa emergency buu ahaa inaan kaas sharcigaas sida uu ahaa inaan ka soo raro oo development keeno ana diideynaysan baa ana Roma tagaya ana siyaad bar u tagaya ana qancinaya inaan lacagta iska khasaareen hadii sida ay u soo qorsheeyeen laga dhigo 3 nin baa igu raacday oo 3dii cuslaa ah kuwa kale yar baa isla maalintiiba waxay magacaabeen 6 nin oo mid shirkadihii ka socda halkaan ay waxay ka qaateen baabuur waxaan uga hormarnay Boosaaso diyaaradda tan qaadanay way noo yimaadeen 6 bari bay jidka ku soo jireen maray survey sameynayeen iyo hadii sida socodkoodii oo iska meeshu dib badan bay way yimaadeen shir baan u galay
lacagtii aanu haysanay markaanu isku darnay ofarkay iyagu keeneen markaanu dhinac dhignay waxa qabyo iga noqday 8 kilomitir lacagtii waa ku wada filaatay intii kale laakiin 8 kilomitir baa noqday baa qabyo iga noqday nimanka waxay yiraahdeen aan dhisno oo markii mashruuca aynu dhamaynayno aynu markaas codsano in loo helo 8 kilomitir ma jirtaan ku yiri waxaan weydiisanayo oo lacag nimanka ma jirto oo aan ka ahayn inay sharciyada ila ogolaadaan kaliya technically ii sheega sida aan u manipulate garan karo nin baa hadlay oo wuxuu yiri waxaynu samayn karnaa 18 bridge oo budgetka ku jira baanu bunta jiifta ka dhigaynaa togag waad aragtay kuwaas lacagtii baa la cunay bay oran jireen Soomaa qof banaadana uma sheeg waasaas cid ogina ma jirto hadda maanta labadiina ka hor bunta jiiftada saasan ku keenay mashruuci halkaas markaan soo gaarsiiyey saddexdii nin oo igu raacay mid reer Milan waxa Keller baa la oran jiray mid waxa reer Roma Betti baa la oran jiray midna Rondinone baa la oran jiray wuxuu ahaa reer Bologna saddex shirkadood saddexda mawlad ka yimid baa lixda shirkadood mid walba waxa leh xisbi kamida lixda xisbi oo coalition-ka ku ah xukuumadda baa kala leh oo lagu naas nuujinaya ilaa waasaas barnaamijkii oo saa kay isugu dubardan oo naqshadiisa u samaysan tahay oo bunta jiiftooyinku ay sidaas yihiin baan waxaan ka tagay waxaan ku noqonay horta nimankii ila socday oo siyaasiyiinta ah waxaan nimanka u diray uma sheegin oo saasaynu tagayna waa soo dhagax dhigaynaa baan ku diyaarad baan iska qaatay meeshaasaan tagay qolka markaan labaad la galay oo naqshadii iyo wixii soo dhigeen baan ka soo qayb galay soo dhageysta baan ku lacagta waxa loogu soo talagalay jidcadayaasha in lagu dhiso jidcadayaasha baan ka bedelayaa waxaan ka dhigayaa in laami lagu dhiso hal laami kaliya inaan dhisaan rabaa laamiguna kaas inuu noqdo ya 480 kilomitir buu ahaa jidkii hore 452 kilomitir buu noqonayaa markaan laami saaro ya nimankii saasaan uga dhaadhiciyey waa ku heshiinay bunta jiiftooyinkaasna saasay noqonayaan budget uma baahni kale intaasaanu hadda ku hawlgelaynaa aniga iyo iyagu marka hore maxamed siyaad baraan u geynayaa wuu iga ogolaanayaa waa ogahay guddigiisii maxaan ku iraahdaa politbureau-ga inuu ka dhaadhiciyo isagoo ka gado isagaa laga rabaa warqad baan ka qorayaa aan karaagsi u geynayo karaagsi baan waxaan ka soo dhaadhicinayaa in lacagtii aadna siisay inaanu saa ka dhigayno si magac kaaga haro magacaagu si Soomaaliya baaqi ugu noqdo Itaaliya si loo xusuusto jid laami aan ka dhigayna sharcigii halkan ka jiray oo baarlamaanku ansixiyay oo 73 ahaa waxaan rabaa inaan challenge gareeyo baarlamaankaana tagaya baarlamaankan is hortaagaya waa challenge gareynaya lacag idin kama rabo kala doorta inaan dhiso jidkaas oo taariikhan idinka haraya iyo inaan lixdaas jidcade ku sameeyo oo 6 bilood ka bacdi ay baaba'aan oo shilin la idinku xusuustaa oo sandulkii ku haray kala doorta maxamed siyaad barre wuxuu yiri warqadii waa ku saxiixay okay waa telefoonna waa ka hormarinay karaagsanaa la hadlay Roman tagay saddexdii nin oo shirkadaha ahaa oo igu raacay saddexdoodii shirkadood bay olole ka bilaabeen mid kamid ah baa Andrioti 12 sanadood xogeynta gaarka u ahaa waxay ii diyaariyeen platformkii bay ii diyaariyeen baarlamaankii inaan ka hadlo 4 saac baan microphone ka haystay baarlamaankii ka hadlay barnaamijkaas oo live ah isla markaas waxay diyaariyeen ilaa nin ajnabi yabaana sharcigoodii baan rabaa inaan bedelo macquul ma waqti sharci ma dhici karo
nimankii saddexdaha waxay ka soo shaqeeyeen xildhibaano iyaga ku xiran oo iyaga ay maaragtay saaxiib yihiin bay waxay ka soo diyaariyeen inay mooshin keenaan markaan hadalka dhammeeyo ay soo jeediyaan si sharciga loo bedelo markii hawshii dhammaatay meeshii waa laga soo dejiyey waxaa la fariisiyey meel waiting room iyagii baa dood isugu haray baarlamaankii intay go-aan gaarayaan baa sugayaa moogta intaa dambe oo iyagu isku mashquulsan yihiin oo loo codaynayo oo la doodayo dibeedka laga samaynayo anigu ma joogo laakiin qolkan ku jiro baan waxaan ka arkayaa dooda meesha ka socota mucaarid wixii ahaa baa buraashadiga daba biyeystay dacaayadda cayda barnaamijkii xumayntiisa ma garanaysa corruption way waxaas nin la yiraahdo Bashiir Yarow reer Kismaayo ah mareexan buu ah ganacsade weyn buu ah ninkaas baa goortii la dhameeyay baarlamaanka la dhameeyo aan banaanka uga soo baxay wuxuu igu sugayaa meesha parkinga nin buuran oo gaaban butucsan buu ah ma aqaan anigu ninka igu soo orday waa isa salaanay safiirkina waa joogaa Soomaaliya odaygi baa igu soo orday waa islaamay wuxuu telefoonka la hadal telefoon buu la hadalada garanay ninkii baan la hadlay adeer inaad ii timaadaan raba waxaad maanta meesha ka akhrisay kursigii aan ku fadhiyay baan wali fadhiyaa waa ooyay ma socon karo inaan ku habbaliyayaan raba oo inaan xaq ku siiyaan raba ninkaas soo raac hadda imo waa kuma baa adaa ogaan doona mucjisay igu noqotay ninkan yaa waay waa Yaasiin Nuur Badebe Yaasiin Nuur Xasan Dawi xagga jooga room jooga degan ya waruntii ma kici karo moogta ilaa waxa ku dhacay muscle paralysis baa ku dhacay moogta ninkii buu igay oo fadhiya oo gabadhiisii kursiga ku riixayso ninkii ooynaya baan u tagay maxaa dhacay oonaysaa wuxuu yiri saad wax u daafacday baan ooynaya raganimada iyo geesinimada iyo eloquence-ga iyo dadkii saad u qancisay anaa jiray coday maalinta aan xorriyadda dhalinay ilaa shalay maanta oo aad arinta akhriday iyo waxaad caqabada ku joogsatay riyayno ahayd inaan aniga Maxamed Siyaad Barana inta ku ballanay baan Sacuudi meel kasta garaacnay inaan jidka dhisno iyo dekada suuq dekada kuma jirto ogow barnaamijkii la dhibay dekadu kamid ma barnaamij sidaas la igu soo ogolaaday waa soo noqday Maxamed Siyaad Barano ilaahay baan waxaan ka bariyay buu yiri ilaahow hay dilin intaan jidka ka dhisay warkaas waa dhab in the name of God labadii kooxood baan u qaybiyay koox halkaan waxaan uga dhigay xarun inay halka ka bilaabaan kooxda kalena inay boosaas ka soo bilaabaan oo wacyi isugu yimaadaan waa sanadkee 86 ma waa bilowgii 86 weey mashruuci oo 5 bilood mise 6 bilood aanu marsiinayno yalho kii kalena aanu marsiinayno Sinujif baa ninkii World Bank u joogay Soomaaliya ya oo Talyaaniga ba article wuxuu ku qoray Washington Post wuxuu yiri mashruuc intaas lacagtiisu tahay oo emergency lagu qaatay markii hore qaab maafiyana loo dhaxgalay oo inta laga bedelay development la keenay hadduu development noqonayo in anagana la soo mareeyay nalama soo marin mashruuci waa socdaa laakiin waxa su'aala mashruuca inta leeg wuxuu ka soo bilowday magaalada Boosaaso oo bad ku taal wuxuu tagayaa magaalada Garowe oo bartamaha dhulanbadahayn ku taal jidkaasu trafficada uu qaadayo badeecada uu qaadayo xagee bay ka dhoofaysaa badeecadii soo mari lahaydna xagee bay ku soo xiranaysaa hadaan meesha dekada ku jirin ninkii mashruuca ila maamulayay Forte oo Talyaaniga ah oo professor baa wuxuu Djibouti baan ku ballanay Djibouti buu yimi isagoo journalkii wada
wuxuu yidhi ninka waanu diray waxaanu sameeyey maxaan samaynaa waxaan ku yidhi waxaynu samaynaynaa dee wax kale ma jiraan dowladdii talyaaniga ku noqonayna deked waa in lagu daraa meesha diyaarad baanu ka soo qaadnay intaanu soo soconay Djibouti ilaa Boosaaso waa doodaynay markaan diyaaradda ka soo degnay meesha airport male waa desert airport ma jiro ma ogtahay baabuurtii intaanaan gelin intaan qoraxda lugeynaynay buu wuxuu yidhi consideration baynu siinaynaa deked sidayna meesha uga dhisi lahayn small port medium size oo aan lacag badan inaga qaadanayn meeqay noqon kartaaba wuxuu yidhi hadda wax ma sheegayo laakiin waa inaan injineerra helaa waa inaan meesha tagnaa aniyo adigu meeshay noqon lahayd waa inaan isla fiirinaa dan dabadeedna aan u dirnaa injineerro say estimate noogu keenaan saddexdii beri aan joognay bay estimate-ka noo keeneen meesha ay hadda ka dhisan tahay waxaa na geeyey Xuseen Gacayti laash buu soo ijaaray laashkii baanu fuulay wuxuu wataa xarig dhinac dhagax kaga xiran yahay xarigaasu badda u ridaa xarigaas waa soconaya ilaa uu dhulkii gaaro Soomaa marka uu dhulka gaaro meesha uu gaaray buu xarigii ka guntaya waa soconaynaa haddana markaan ilaa afka meesha hadda dhagaxu iskaga beegan yahay ilaa aanu halkaa gaarnay cabirka saasuu ninkaas u qaaday anna waa qoraya waxaan ku soo noqonay kaamkayga waan ku soo noqonay nimankii aqalnimadooda iyo waxooda isa saareen waxay yiraahdeen deked 270 mitir oo marka 6 ilaa 8 tan sida uu ku soo xiran karo iyo 3 marso oo doonyo ku soo xiran karaan oo midiiba tahay 50 mitir waa 150 mitir iyo 270 400 iyo something mitir bay isku noqonayaan intaas waxay idinku kacaysaa 10 milyan oo dollar maantana meeqay ku qiyaasayaan nimankan maxaan ku yiraahdaa DB World 330 milyan bay maantana ku qiyaasayaan طبعا tii waa ka weyn tahay laakiin lacagtu soo caqli waa la soo maaha absolute wali jidkii marka aan sidaa u sameeyay oo sidaa ku hirgalay oo aanu 15 bilood ku dhamaynay 15 bilood baan ku dhamaynaa wadada dhan habeenkii laga bilaabo Garowe ilaa Qardho habeen iyo maalin waa shaqeynaa habeen walba generator baan noo daarnaa oo nalal baa daarnaa aanu jidka baarid ku sameynayna non stop shaqadu isaasay waxa ku baxay 215 milyan 215 milyan wadadii intaas ku baxay markaad u qaybiso 452 kilomitir waxaan kuu sheegayaa inta halkii kilomitir ku baxday baan kuu sheegayaa ya 475 oo dollar baa kilomitirkiiba ku baxay maanta waa milyan iyo bar jidkii 15 bilood ka bacdi waaci ayaanu ugu dabaaldegnay labadii shirkadood oo labadood ay calan meesha aanu surnay bishii 10 Oktoobar 10keedii waxaanu soo gabagabaynay mashruucii oo ku faataxaysan mashruucii maalgelintiisii inuu dhammaaday oo la wada hirgeliyo oo meel walba loo diray waqti oo la soo furo baanu u dabaaldegnay